inaanu yeero dhanka macallimiinta kuliyadda Sidam waxaanu yeerayaa markan macallinka roogcadaaga waaya araga aqooyaanka Faysal Farfarle oo ah macallinka wariyaasha ka howlgala warbaahinta Somaliland macallinkooda macallin Faysal Maxamed Cabdi Farfarle ayaanu yeerayaa oo isaguna halkan ka hadli doona oo ku hadli doona kelmadda macallimiinta kuliyadda Sidam soo dhaw macallinka haleela soo dhaweey bismillaahi raxmaani raxiim xabsa bayga codweyno wariye caab baxay kulli su'aal ninkan waa ninka kaga tagay khaliifadayda anigu libali buu shay u dhiibaa markuu sheekhu oo dhamaysto power delegation baa la yiraahdaa dhinaca saxaafadda marka ninkan anigu kaga tagayo oo shaydii waa ninka halkan ka hadlaya nin hawl yar hamoodina codku saani ma yahay وهاج كل أنا دمان عرضي عيال ما نطور هالليا أنا مجا كل هالليا معلمين تا كلية دا سيدم وها عليا هاي لما أنتن أدية أدية يدوكسون وينيا قيبه نكلا دون قيبنا قيب كمان عضو عيال ليا هاي أديكو هتشينيا إن مستقبل ونكسن عهشان إن شاء الله تعالى كارهان صحافة هذا الله سيد دردار منا وحبا ونسصوض دردارني وهذه يتشارع لك وحيابها يقول بضوء حكم ذا فيصل وصحافة ميال الله سيد دردار من وحنفنا يا اللي يرضى صحافة أردن ما أنت وحى أي مديهين إن أيهين وأود أفراد بالله هذا صحافته أود أفراد صدق ذا أوضوذ كلا الدولة ده وحنا رجينا مانتا إني دمان باليرة ذا كهول قشاء تلفزيون لما ذا حبلان يكون الدولي جوا إني كالوين إنه هيان أو نفترض هران معه عشان تقول يا أن كل دردار لهو حويا إلى إنه نقولنا ناشنال ومحي إنه نقولنا إنه aqoonteena iyo cilmigeena saxaafadda aynu ku daro oo mar walba aynu wax qorayno amba aynu wax sheegayno aynu ka firro way gaaladan had iyo jeer aynu aragno ee inoo sheegaya madax banaanidu waxa weeyaan marka ay tooda noqoto national interest wax la yiraahdo ay eegaan wadankooda waxaan xasuustaa Falkland markuu dagaalku ka dhacayay wariyaasha Ingiriisku way kala guranayeen oo ciidankoodii iyo ciidankii kala isleynayay 3 saacadood marka ay meesha dagaalku ka dhaco ayay wararka dirayeen marka midda qolada anigu ku taldaanbay waxa weeyaan inaydu olaan aqoonta aynu baranay saxaafadda iyo aqoonada kale qaybaha kale dhamaantiinba intiina ka baxaysa gaar ahaan hadda xagga u yara liico ahaada qoloykii la kale waxba yara jiidanayay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa isugumay keen harinina ka wax dardaarale waxaan leeyahay mustaqbal fiican dhalinyarada meelaha joogtay iyo kuna warbaahinta waxaan leeyahay dhalinyarada geelaba jir soo wada mariyay dhalinyarada ha loo soo dhaweeyo oo meelaha marka ay tagaan soo dhaweeya walillahi tawfiiq wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh